lanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warbixin ka hadlaysa tobanka diyaaradood ee ugu wanaagsan dunida sanada 2020. Nambarka 10aad waxa gashay Taa Airways waxa laga leeyahay dalka Thailand. duulimaadkii ugu horeeyay waxa ay sameysay 1988 waxa ay sameysay 84 duulimaad waxayna u kala duushaa 37 wadamo oo caalamka kamid ah. Lambarka 9aad waxa gashay Lufthansa Airways waxa laga leeyahay dalka Jarmalka waana diyaaradda ugu weyn dalkaasi waxay duulimaadkii ugu horeysay ee bilowday sanadkii 1955 waxayna u kala duushaa 78 dal oo kamid ah dunida. Nambarka 8aad waxa gashay Qantas Airways waxa laga leeyahay dalka Australia duulimaadkeedii ugu horeeyay waxa ay bilowday sanadkii 1921 waxayna u kala duushaa 40 wadan oo caalamka kamid ah. Nambarka 7aad waxa gashay Turkish Airways waxa laga leeyahay dalka Turkiga waxa ay shaqo bilowday sanadkii 1933 waxay haysataa rikoor caalami ah waxayna u duushaa 261 wadan oo kamid ah caalamka. Nambarka 6aad waxa gashay Eva Airways waxa laga leeyahay dalka Taiwan waxa la sameeyay sanadkii 1989 waxa ay sameeysaa 40 duulimaad oo caalami ah waxayna u kala duushaa Australia, Europe iyo Waqooyiga Amerika. Nambarka 5aad waxa gashay All Nippon Airways waxa laga leeyahay dalka Japan waana diyaaradda ugu weyn dalkaasi waxaana la sameeyay 27 December sanadkii 1952 waxayna u duushaa 60 wadan waxayna sameeysaa 272 duulimaad oo caalami ah. Nambarka 4aad waxa gashay Cathay Pacific Airways waxa laga leeyahay Hong Kong duulimaadka ugu horeeyay waxa ay bilowday sanadkii 1946 waxay ku guuleysatay 4 jeer abaalmarinta diyaaradaha caalamka waxayna u duushaa 60 wadan oo dunida ah waxayna sameeysaa 130 duulimaad oo caalami ah. Nambarka 3aad waxa gashay Singapore Airways waxa laga leeyahay dalka Singapore waxay duulimaadkii ugu horeysay bilowday sanadkii 1972 waana mid kamid ah diyaaradaha ugu wanaagsan dunida waxa ay sameeysaa 62 duulimaad oo caalami ah waxayna u duushaa 32 wadan oo caalamka ah. Lambarka 2aad waxa gashay Qatar Airways waxa laga leeyahay dalka Qatar waxa la aasaasay sanadkii 1993 waxay duulimaadkii ugu horeeyay bilowday 20 Janaayo sanadkii 1994 waxay ku guuleysatay sanadkii hore diyaaradda ugu wanaagsan ee dunida waxayna sameeysaa 140 duulimaad oo caalami ah. Nambarka 1aad waxa gashay Emirates Airways waxa laga leeyahay dalka isu taga Imaaraadka duulimaadkii ugu horeeyay waxa ay bilowday sanadkii 1985 waxa ay sameeysaa 140 duulimaad oo caalami ah waxayna ku sameeysaa 80 wadan oo dunida kamid ah. guud ahaan waa naga inta warbixintii ka hadlaysay 10 diyaaradood ee ugu wanaagsan sanada 2020. mahadsanidin.